maxkamadda gobolka Awdal ayaa maanta dhaarisay xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama iyadoo lagu dhaariyay xildhibaanadan cusub xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama waxaana halkaasi ku dhaariyay Sheekh Maxamed Siciid Samaale oo ka socday maxkamadda gobolka Awdal. الرحمن الرحيم waxa ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo wabillahi tawfiiq Allah inagu anfaa kadib markii la dhaariyay xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama waxa hadalka qaatay Barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro isagoo sheegay in maalinta bariya ay xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ay soo dooran doonaan maayarka magaalada Boorama iyo waliba ku xigeenkiisa. maanta hawshan waxay ku dhamaatay dhaarta ritoole mushkilad badan haysato habsankiina badan imika 10kii baynu maraynaa 8diina waynu ballanay ritoole hadaa la sagaalka subaxnimo 13kii noo qura dadkiina kala dhami wada fasaxayaati iyaga isu shirgudoominaya iyaga is dooranaya hawshaas iyaga leh xogayaha qolo wuxuu qurquriya iyaanu goobjoog ahanayn baa ugu helinayna. Abshakuur Maxamed Ali 5TV Boorama.